kulanti wanaagsan dowdayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkana ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah midowga murashaxiinta oo qaadacay warmutiyeedkii ay shalay soo saareen madaxda golaha wadatashiga qaran iyaga oo weerar culus ku qaaday Rooble iyo maamulada. wararkii ugu dambeeyey madaxda golaha wadatashiga qaran oo si degdeg ah ugu yeeray guddiga doorashada heer federaal iyo walaac ka dhashay qodobadii ka soo baxay shirkii Muqdisho. haddaba miyuu gudoomiye Cirro qaadacaya go'aankii golaha wadatashiga qaran? رئيس وزراء هوراء عمر عبد الرشيد وسوى نغوري من ورمتيات كي سو سارن رئيس وزراء الروبلي مدحدا مامولدا رئيس وزراء الروبلي oo baaq culus loo diray ayaan idiin soo gudbin doonaa. wararkan kalena waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Afrika oo heshiis cusub gaaray xilli AMISOM ay waqti dheer sii joogayso Soomaaliya, iyo xaaladda magaalada Beledweyne oo weli kacsan xilli ciidamadii ugu badnaa oo isku hor fadhiya magaaladaas laga cabsi qabo inay ku dagaalamaan kadib markii xalay militari gadoodsan ay la wareegeen Beledweyne. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah, waana isniin 23 bisha 8 Agoosto sanadka 2021. barnaamijka wararka Soomaaliya waa mid aan kusoo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka, dowladda wada ka qayb qaadada dib-u-dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin intaas nala fahamtaane. fadlan nala faafiya wararka oo gaarsiiya saaxiibadeena idinkoo ku sheekareynaya baraha bulshada. mahadsanideen. aynu ku bilowno wararkeena. midowga murashaxiinta ee Soomaaliya ayaa waxa ay qaadaceen warmutiyeed ay shalayta soo saareen madaxda golaha wadatashiga qaran, kaasi oo ku saabsanaa habraaca doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. qoraal ay goordhoweyd soo dhigeen baraha internetka ayaa waxa ay ku sheegeen inay markaasi aad uga xun yihiin in la soo saaro habraac noocaas oo kala ah. midowga murashaxiinta oo markaasi isugu yimid hotel Jazeera magaalada Muqdisho ayaa waxa ay markaasi soo saareen warmurtiyeed u qornaa sida tan: golaha midowga murashaxiinta waxa uu taagan yahay xaqiijinta sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho cadaalad ah, xor iyo xalaal ah, taas oo leh sharciyad lagu wada kalsoon yahay, horseedana xasilooni siyaasadeed iyo kalsooni lagu qabo hannaanka dowladnimada. golahu waxa uu si adag u diidayaa habraacii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee ku aadan doorashooyinka markaasi mudanayaasha golaha shacabka, gaar ahaan qodobada la xiriira oday dhaqameedka, magacaabista bulshada rayidka ah, xulista, xaqiijinta, dabagalka iyo diiwaangelinta ergooyinka oo dhammaantood gacanta loo geliyay madaxda dowlad goboleedyada. golahu waxa uu markaasi u arkaa habraaca doorashooyinka golaha shacabka ee kasoo baxay golaha wadatashiga in uu khilaafsan yahay dastuurka dalka iyo heshiiskii 27 May oo dhigaya in doorashooyinku ay ku dhacaan si cadaalad ah, oo markaasi ku saabsan in doorashadu ay noqoto mid xor iyo xalaal ah. golahu waxa uu in muddo ah hor taagnaa isku daygii uu madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku doonayay in uu doorashooyinka dalka ku boobo, waxaana suuragal ahayd in golaha wadatashiga qaran ay dhaqankii Farmaajo laga diiday u dabamareeyaan, ayaa lagu yiri qoraalka. sidoo kale waxaa lagu yiri qoraalka: golahu waxa uu arkaa habraacu uu markaasi dusha sare magaca doorasho ka sito, laakiin gudihiisa uu magacaabis yahay, wuxuuna ka dhigayaa cawaaqib xumo markaasi ka dhalan karta doorasho la boobo ama lagu shubto, oo ay ka mid tahay in colaad sokeeye dalka markaasi kusoo laabato, in shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ay ka aamin baxaan natiijada doorasho boob iyo markaasi ku shubasho ah, in nidaamka dowladnimo uu waayo markaasi sharciyada iyo aqoonsiga, ayaa lagu yiri qoraalka markaasi ka soo baxay golaha midowga murashaxiinta. sidoo kale waxa ay baaq u direen ra'iisul wasaaraha iyo weliba sidoo kale madaxda golaha wadatashiga qaran iyagu ku midaysan golahaasi, waxayna ka dalbadeen in 135 oday la aqoonsanaa hoggaanka dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ay saldhig u noqdaan soo xulista ergooyinka. sidoo kale waxay ugu baaqeen in la suuliyo caqabadaha badan ee lagu gudbay doorashooyinka. waxay sidoo kale ku baaqeen in aan xubnihii baarlamaankii hore baaritaan laguma celin, halka tartamada cusub ee xilka xildhibaan looga joojin karo oo keli ah fal dambiyeed ay maxkamad xukuntay iyo in lagu hayo falal argagixiso oo caddayn ah. si loo kala saaro go'aanada siyaasadda iyo howlaha farsamada, waa in guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal loo madax banaaneeyo kaalinta farsamo ee hirgelinta doorashooyinka. si kastaba, warkan ka soo baxay midowga murashaxiinta ayaa waxa uu markaasi ku saabsan yahay
in loo baahan yahay in doorashadu ay noqoto mid xor iyo xalaal ah islamarkaana ay kasoo dhalaalaan hawsha loo igmaday doorashooyinka guddiga doorashooyinka ee heer federaal. dhinaca kale madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu ka hadlay shirki jaraa-id oo maanta qabteen midowga murashaxiinta, waxa uuna weerar ku qaaday madaxda shirka wadatashiga qaran isagoo sheegay in aysan aqbali doonin waxa ay wadaan. xasan sheekh maxamuud ayaa ku goodiyey in aan marnaba la aqbali karin tallaabada ay qaadeen golaha wadatashiga qaran, isagoo oo weerar afka ahna ku qaaday siyaasiyiinta iyo weliba sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya. warmutiidka ay soo saareen shalayto ayaa aad markaasi loo dhaliilaya golaha wadatashiga qaran. dhinaca kale saacadaha soo socda waxaa markaasi kulmaya xubnaha golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka heer federaal, sidoo kale waxaa ku lamaansan guddiga doorashada heer dowlad goboleed. kulankan oo ka qabsoomaya teendhada afisyoon ayaa wararka la helayo waxay sheegayaan in looga hadlayo tabashada ay guddiga doorashooyinka heer federaal ka qabaan habraaca shalay soo saareen golaha wadatashiga qaran ee la xiriira doorashada xildhibaanada golaha shacabka. sidoo kale kulanka waxaa looga hadlayaa sidii loo hirgelin lahaa habraacyada doorashooyinka dalka sida amniga, maaliyadda, xulista ergooyinka, qoondada haweenka iyo habraacyada xildhibaanada aqalka sare ee somalilan. waxaa cabsi laga qabaa in guddiga doorashada heer federaal uu ka hor yimaado arrintaasi. golaha wadatashiga qaran ayaa warmurtiyeedkii ay shalay gelinkii dambe kasoo saareen shirkii uga socday teendhada afisyoon ee magaalada muqdisho waxa ay hoos markaasi ugu dhigeen awoodda guddiga doorashooyinka heer federaal, iyadoo awood buuxda la siiyey guddiyada doorashada heer dowlad goboleed, taasi oo ka dhigan in doorashada ay markaasi si fudud u maamulan karaan maamul goboleedyada dalka ka jira oo walaac badan horey looga muujiyey. isla wararkaas ayaynu ku guda jirnaa intaanan ka bixin. ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake oo qoraal soo dhigay bartiisa twitterka ayaa waxa uu kaga hadlay qodobadii kasoo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka dhacay muqdisho. ugu horreyn cumar cabdirashiid ayaa ka hor yimid go-aanada kasoo baxay shirkaasi, waxauna tilmaamay inay markaasi abuuri karaan xiisado horle sida uu tilmaamay. waxauu intaas raaciyay in gebi ahaanba meesha laga saaray hufnaantii geedi socodka doorashooyinka ayna awoodda isku soo koobeen madaxda maamulada ee dalka. cumar cabdirashiid oo hadalkiisa sii wataa ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in dib u eegis deg dega lagu sameeyo qodobada qaar ee warmurtiyeedka ee laga soo saaray. hogaamiyaasha goboladu waxay ku guuleysteen inay xoojiyaan awoodda ay ku leeyihiin doorashooyinka aqalka hoose. warmurtiyeedka ayaa waxa uu dhumiyey hufnaantii geedi socodka oo haddii aysan helin taageerada dadka soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inay kiciso xiisad cusub oo laga yaabo inay rabshado dhacaan. dib u eegis deg deg ah ayaa loo baahan yahay ayuu yiri ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya. waxauu sidoo kale ku baaqay in loo baahan yahay in laga fikiro mustaqbalka soomaaliya iyo doorashooyinka soo socda si natiijada u noqoto mid markaasi la wada ogol yahay oo la isku raacsan yahay. qaybaha dambe ee barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya ayaynu isla soo gaarnay. iminkana aynu fiirino heshiis ay wada gaareen dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo midowda afrika oo ku saabsan ciidamada amisom. ururka midowda afrika iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ku heshiiyey mustaqbalka ciidamada howlgalka midowda afrika ee amisom ee ku sugan soomaaliya wax ka yar 4 bilood inta uusan dhammaan muddada loo qorsheeyey inay joogaan soomaaliya. qaraar la ansixiyey bishii juun ayaa la isku raacay in ciidamada amisom ay sii joogaan soomaaliya ilaa disembar 2021, markaas kadibna ay u ambabixi doonaan dalalkooda. laakiin soomaaliya ayaa kasoo horjeesatay tallaabadaas sababo la xiriira khatarta al-shabaab ee soomaaliya. war-saxaafadeed si wada jir ay usoo saareen african union iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa tilmaamaya in arrimo dhowra la xaliyey. tallaabadan ayaa sii dheereyn doonta joogitaanka ciidamada amisom ee soomaaliya ilaa xasiloonida ee laga xaqiijinayo. ciidamada ayaa inta badan waxaa dhaqaalahooda bixiyay midowda yurub iyo qaramada midoobay. waxa ay ku heshiiyeen in la dardargeliyo hirgelinta qorshaha kala guurka soomaaliya, taas oo qorshuhu yahay in ciidamada amisom ay mas-uuliyadda amniga ku wareejiyaan ciidanka qaranka soomaaliyeed, inkasta oo si tartiib tartiib ah loo dhaqangelin doono. sidoo kale labada kooxood waxay isku raaceen in al-shabaab ay weli khatar weyn ku tahay dalka, sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in si wada jir ah looga shaqeeyo sidii meesha looga saari lahaa kooxaha loogu yaro argagixisada al-shabaab iyo daacish. bayaankan kasoo baxay dowladda federaalka iyo midowda afrika ayaa u muuqda mid african union ay hoos ugu dhigtay qiimeyntii dhowaan ay sameeyeen khuburo ka tirsan midowda afrika, taasi oo la xiriirtay
in Soomaaliya aysan iyadu horumar samaynin. AMISOM waxa ay Soomaaliya markaasi ka joogaan raade 22,000 oo askari kuwaas oo howlgallo qaybo kala duwan ka fuliya gobolada dalka waxayna isugu jiraan Kenya, Djibouti, Ethiopia, Uganda iyo weliba sidoo kale Burundi kuwaas oo dalka jooga ilaa iyo 2007. ugu dambeyntiina wararkii ugu dambeeyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya inay kacsan tahay xaaladda magaalada kadib markii ay xalay ciidamada deegaanka ka soo jeeda iyo maleeshiyooyin ay la wareegeen xarumaha maamulka ee magaalada. ciidamada gudubsan ee ka soo jeeda deegaanka iyo maleeshiyada hubeysan ayaa waxa ay ka soo horjeedaan inuu magaaladaasi tago madaxweynaha Hirshabelle oo warar soo baxay ay sheegayeen in uu maanta ku wajahan yahay halkaasi. odayaasha dhaqanka ee beesha bariga magaalada Beledweyne ayaa diidan waan ay wadeen xildhibaano iyo mas-uuliyiinta deegaanka ee halkaasi dhawaan tegay waxayna diideen in magaaladaasi uu tago madaxweynaha maamulka Hirshabelle ee Cali Guudlaawe. Cabdullaahi Goodax Barre ayaa noqday kan keliya ee taageeray kacdoonka iyo gadoodka cusub ee ka jira magaalada Beledweyne. siyaasiyiinta waaweyn ee beesha xawaadle ka soo jeeda marka loo fiiriyo waxaa la filayaa in arrintan xal loo raadiyo iyadoona halkaasi ku sugan yihiin siyaasiyiin waaweyn oo beeshaas ka soo jeeda. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war lamid ah intaynu dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad.